25 Maarso 1975 ayaa hogaamiyey isbedel doonka ahaa ee Sacuudiga Boqor Faysal waxa lagu dhex toogtay qasrigiisa. Gacan ku dhiigluhuna waxa uu ahaa wiil uu adeer u yahay oo xabadda afsaar uga dhigay. Markii rasaasta la ridayay waxaa ag taagnaa wasiirkiisa shidaalka Axmed Zaki Yemeni. Sanado badan kadib gabadhiisa Dr. Ma Yemeni ayaa BBC-da uga sheekaysay sida xusuusta maalintaas ay u saaqday qalbigeeda oo ay ugu noqotay mahadho aysan weligeed ilaawin. Boqor Faysal ayaa lagu dhuftay 3 xabadood xilli uu u foorarsaday inuu dhunkado gacanta wiilka uu adeerka u yahay. Laakiin daqiiqado gudahood boqorkii ugu awoodda badnaa Carabta nolol laguma soo rogin oo isla goobta ayuu ku geeriyooday. Boqor Faysal wuxuu xukunka qabtay 1964 wuxuu ahaa ninkii doonayay inuu casriyeeyo Sacuudiga oo ugu yeeri jiray saxaraha la eeg galbeedka Yurub. Wuxuu furay telefishinkii ugu horreeyay dalka, wuxuu bilaabay waxbarashada gabdhaha iyo inay si la mid ah wiilasha dugsiyada u xaadiri karaan, wuxuuna awoodda shidaalka u isticmaalay si uu dalkiisa ugu bedelo. Laakiin isbedeladaas oo dhammi waxay u cuntami waayeen asal raacyadii Sacuudiga ee madhabta adag haystay. Markii uu dhintay Boqor Faysal, Sacuudiga waxa uu bariyay waa cusub, mid u dhaxeeya in lala jaanqaado casriga iyo in dhaqankii hore lagu sii adkaado.